فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وسؤالها ددوينها وجواب شيخنا فضيلة الشيخ محمد عبد أمل. شيخ وحن كفر حاس كي هل دلقو سنة ككون أفر بغل أفرتني اللح هجرة وانسوع الشذي هدنا الله بدلقو أيام كفري سنة ككون أفر بغل أفرتني صدح هجرة قبل وحي ربتا إن أنسوع ليو أو أنكسوع ليو عرورت هذا يرهر كذي waxayna leedahay labada dalqadood oo dambe isma raacaan anigu raali baan ka ahay in aan soo celiyo labada dalqadood ee dambe ma israacayaan masalada ku saabsan dalqadaha la israaciyo ma israacaan mise isma raacaan waa mas'alo khilaafiya marar badan waa ka soo jawaabnay khilaafkeeduna ilaa waqtigii saxaabada ilaa hadda la isku khilaafsan yahay ra'yi dhahaya ama culimada qaar qaba dalqaduhu way israacayaan haddii la israaciyo oo aimada madaahibta afartii ka mid yihiin iyo ra'yi kale oo dhahaya dalqaduhu isma raacaan oo haddii saddex la yidhaahdo hal bay noqon haddii laba la yidhaahdo hal bay noqon saddexda dalqadood waa inay si kala duwan ay u dhacaan labada madhabba way jiraan culimada midba sibaa la xoog badan muslimiinta hadda wadamadooduna qoloba sibay qaataan maxkamadahoodu oo ay ku dhaqmaan masaladaasi tafaasiisheeda faraha badan haddaynaan sii gelin sida kolley nala xoog badan ama ila xoog badan wallahu aclam waxa weeye inaysan dalqadu israacin oo haddii laba yidhaahdo hal bay noqon saddex hal bay noqon sidaas daraaddeed labada dalqadood ee aada israacisay mid baa laga soo qaadayaa dalqad baa ku laaban haddii ay ciddadii ku jirto waad soo ceshan kartaa hadday ciddadii ka baxdayna waad guursan kartaa guur cusub halkii dalqad unbaanu mar walba soo noqonaysay laabnayd wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh su-aasha 395aad sheekha waxaan weydiinayaa qofkan madaahibta midna raacsanayn ee muslim uun iska ah bal ka waran sheekh midda kale qofka madaahibta midba meel ku raacsan ee aan hal mida u go'nayn isagana ka waran madaahibta afarta ah in mid la qabsadaay waajib maaha sunnana maaha leanna madaahibtani way ka dambeeyeen xilligii shareecadu degaysay waajib iyo sunnana shareecay ka timaadaa qur-aan iyo sunnu ka yimaadaa sidaas daraaddeed inaad madhab afarta ka mida aada qabsato wax waajiba ma aha sunnana maaha haddii ruuxu wax baadhi karo oo isagu masalada marka uu ka baaraandegi karo ka salgaadhi karo ehelna uu yahay baadhistiisa wixii uga soo baxda waa inuu ka diindhigto oo uu raaco hadduusan ehel u ahayn oo masalada uusan baadhi karin ka salgaadhi karin markaasi meesha uu joogo culimada joogta ciddii uu aqoon iyo alla ka cabsi bidayo ayuu weydiinayaa wuxuu u sheegana wuu ka diindhiganayaa waa midda alla yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun hal laa sa'aluu waa kii nebigu sal alla alay wasalam hadday masalada garan waayeen maxay u weydiin waayeen innamaa shifaa'u lciyi su'aal ruuxaan wax garanaynin daawadiisu waa su-aasha marka haddaadan masalada baadhi karin amaadan ka salgaadhi karin aqoonteedii lahayn culimmada weydii waxay kuu sheegaanna ka diindhigo taasi waa mas'alada iyo madhab ma la raaci karaa masalada labaad madaahibta kolba mid inuu ruuxu raaco oo mas'alaba uu madhab ku raaco laba mid weeye inuu daliilku keenayo oo masaladii markuu baadhay masalo walba daliilkiibuu ku raacaya sidii la xoog badnaatay kadibna madhab buu waafaqay madaahibta ka mid markaa daliil buu raacayaa daliilku kolba meeshuu la maro inuu marana waa laasim ama madhabkan ha waafaqo ama kan ha khilaafo ama kan ha waafaqo daliilkuu daba socda iyo wixii la xoog batay taasi waa sax haddiise ay tahay madhab walba meeshay jilicsan ama ii dabacsan
ama naftaydu meeshay jeclaantaan madhab walba ka qaadanaya ina madaahibta midba meel buu ku jilicsan yahay midba meel buu ku dabacsan yahay meelaha dabacsan iyo jiljileeca inaad urursato taasi waa xaraam waa masalada culimadu yiraahdaan man tatabba'a rukhas al-ulamaa'i tazandaqa meelaha culimadu ay jiljilciyeen ama meelaha ay ku dabacsan yihiin ruuxii u raacraaca oo urursada يعني مركز بدين لا أنبو كدعاء صوت مركز دليل رعمة وهو الرع شافعية ذا ميلها تجد عصام بانك قادا حنفية ذا ميلها يكون دبع سين بانك قادا مالكية ذا ميشي نفتي ذو كيشان كقادا مركز وحو أرور صنيا وهي نفتي سي هودي سوتشعلات الدين رعمة مركز وهو الرع كاسي مركز وكدويه سلاد هذا بنا جواب تدسياسي والله أعلم in meelaha mu'tamaraadka saacabada la garaaco maxay diintu ka qabtaa tan kale mu'tamaraadkii hore ee diiniga ahaa ee horey loo qaban jiray waa la takbiirsan jiray maxaa u dhaxeeya kuwan iyo kuwii hore xafalaadka iyo munaasabaadka in la sacabiyo sunnadii salafka ma aha hadigii salafka iyo dhaqankoodii ma aha waxaa dhaqankooda ahaa hadday shay u bogaan inay ama takbiirsadaan oo allahu akbar dhahaan ama subxaanallaahi ay dhahaan laakiin in saxaabada la isku garaaco dhaqankoodii ma ahayn masalada culimadu markay soo korodhay waqtigan hadda casrigan aan joogno ayay ka hadleen laba ra'yi bay isugu khilaafeen qolo waxay yidhaahdeen waa xaaraan salaanteeda xadiista nabiga waxay ugu soo aroortay dumarku markay tukanayaan haddii imaamkoodu uu sahwiyo si ay imaamka u baraarujiyaan inay sacabka isku garaacaan saasay masaladu ugu soo aroortay si khaas ama tan xafalaadka iyo munaasabaadka ama diini ha ahaadeen ama munaasabaad kale ha ahaadeen la sacabinayo gadaal dambe ay ka soo korodhay muslimiintii hore mayna aqoon jirin markay soo korodheen culimadu isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin ma banaano wax xaraan sheekh ibn baaz iyo culimo leh baa maray waxay leeyihiin dhaqan gaala waay allana quraan kariimka wuxuu ku sheegay quraysh iyo nimankii gaalada ahaa kacbada iyo beydka ilaahay in ay ku cibaadeysan jireen inay saxabiyaan oo ay foorfooriyaan وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية بيت كأكتيس وحي أنكو سمين جرين فورفوريان إيو إني سحبيان إيو وحي أدري شريان ونقن قالك سوچيدو تشبه باكو جرا سيدا سيكدو وحاقبا علماء قاركود وهرمود يهي الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله ووحو ليهي مسألة التحريم ما قارسيسنا حرام لما ديه كرو إلا إسكدا يوي في عنده لكن حرام ما قارسيسنا آيات أنا لو مد لشان كرو آيات عبادي كهالليسا تنوع عادو عبادة معه وشيء عادة عيدناكم عبادي سنس لقن قالوا ويانا شيء مركو فافو أصلا أنا دو قالك سوتشي دي حتى هذو انتو فافو مجتمعات كوضا كوضا دحيو مركا أسل كيسي لها المامو مركا سي تشبه كمجري ليه تشبه أنا أصلها النيو أباهيه أي قاركوض أورانيا هل كان مركا وحوي ومسألة علماء اسكو خلاف سيهين سيدا في عن اللي اسكد دايوه ومحوها هاي لقوبة دشو تي أي سلف ككتشرتي حديث النبي كان كسوغان أما تكبيرتا أما سبحان الله لكن هذه السماية وحاران قطعي إن لرهاي دليل خاص يبهنته خاصة عبادة ما هو عادة شيء عادات كانوا يكدوين عبادات كانوا يكدوين مركين اللي يسكد يوي في عنتها هاي لكن تحريم كذا وعلوسي هاي والله أعلم. جزاك الله خير شيخ. سؤال صدح بقول سؤال تضبط شيخ waxaan weydiinayaa qofkii sheegta qabiil aan qabiilkiisa ahayn wax ku khasbayana aysan jirin diintu maxay ka qabtaa
arrintaasi waa arrin khalad ah abtirka iyo nasabka waa in la xifdiyo oo la ilaaliyo لأن أحكام بدن الشرعية كحرا النبي قالنا وكيد صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم نسب كي نكبرت واحد قرابة كحري لسان نسب كإن لا إلالية ومقصد كمية مقاصد الشرع حديث كصحيحين ككوي من حديث أبي ذر يا نمالينيا أي رسول كحري صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر مجرنين أبيه حد عن هين شيغانا يوكو أبتر سنة يساقو أوك إلا كفر وكفرنا وكفر النعمة والنبي قدر صلى الله عليه وسلم ومن ادعى قوما ليس له فيه فليتبوأ مقعده من النار ننكي رير شيكتا aan ka tirsanayn naarta meeshuu ka fadhiisan lahaa had diyaarsado rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka lama ogolo ruux inuu abtirkiisa bedelo waa dambi weyn kabiira min kabaa'ir ad-dunub waa arrinkaas marka waa khalad laakiin waxa la sameyn karaa hadduu ruuxu dhex degan yahay ama ku dhex nool yahay reerku ka dhashay reer aan ahayn isagoo nasabkiisa iyo abtirkiisa sheeganaya oo aan bedelaynin يوريركا وكل حنوليا وحلا وذاقي كرا وقارانكا إيو مكتا إيو وحي تعاون إيو ريركا ولا وذاقي كرا بحكمي وكل حنوليا هاي درادت وإسكاشن كرا وحي محو هاي وناكا لكن أبتيركا لما بدري كرو والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ سؤال صدح بقول سؤال سديداد شيخ وحن شوغا دلك كندا su-aasheedu waxay tahay arrinta kaararka bangiga waddankan la-aantiis waa dhib guryaha xataa ma kiraysan kartid haddaadan haysan kaar banki marka kaararka bangiga ma loo qaadan karaa min baabi daruura ma loo qaadan karaa heshiiska bangigana waxaa ka mid ah kaarkan wakhtigiisa haddii lacag lagu bixin waayo ama uu dhaafo waxaa fuulaysa lacag dulsaar ah كريدت كاردكو عقدك يهشيسك لغو غلياي يا معاملاتك لغو سمينيا ومعاملات وتا شرط الربوي شرط الربوي يقولوا حكا إيمانيا أما عرفا أما لفظا با مركات كاردك قادنيس أما كو معاملونيس وحوي بنقيا كاردك كسيي ayaa hadaad waxaad ku qaadatay waqtigiisii kala daahdo bangiga ka bixinaya oo ku qasban markuu ka bixiyana dulsaar buu saaranaya wuxuu ka bixiyay shardiga ribowiga baa marka ku jira aqdiga haduu shardi ribowiga galana saddexda imaam waxay isku waafaqsan yihiin inuu aqdigu burayo al-imaam Malik Shafi'i iyo Ahmad waxay leeyihiin shardi ribowiga aqdigu burinaya sidaas daradeed caqdigaasi sax ma heshii sax ma heshii sharciga khilaafsan waa mar hadduu sidaa iyo shardi ribowi la socdo waa in la iska ilaaliyo haddii nolosha lagu xidho wadamada qaarkood ay adkaato cidhiidhi gasho nolosha asaasiyaadkeedii la'aantii sida wadamada qaarkood oo kale oo ama xaraj yimaado ama daruura timaado markaasi ruuxu daruura ahaan أما حاجة أن لقى مارمي كرين وحرج كينيس لأنتد أيو أقليا أو أقادنا يا مركان وحا لقى مارمانا حالته هدي كلفتو إنو إسكي إلالي الربا وقت جدي إني لازمته أو العقتن دينتن أوقات وقت جدا كبحي وكتحدروا إن ربا فوشو مركز شرطي ماشي إيمانا يو شرطي بريا عقدنا وأصحيا وماذا كان أبو حنيفة سيداسي مركا ويكون صحون كرتها لكن وإنه كدداله إن أي لعقت الربا دي صوف وشو مركا إيضا وهدي لغو قصبنا هذا لقى ماربي والله أعلم شيخ قبل كيوكون نورث كندا وقبل قرحة أن لقى أركين وهبين مرو الباء ساعد أيانا لقو الصعداء
marka salaadaha masaacada ayaa lagu qiyaasayaa maadaama qorax iyo maalin midna aysan jirin. waddamada qaarkood oo ayna qoraxi ka jirin oo 24 saac habeena ama 24 saac waa maalin sidee baa loo tukanaya arrinkaasi waxaa laga qaataa xukunkeeda xadiis nabigu sallallahu alayhi wasallam oo tilmaamay waa xadiidka dajaal ku saabsan من حديث النواس بن السمعان رضي الله تعالى عنه وارضاه صحيح مسلم كوكويالا صحابته waxay weydiiyeen nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu dajaal uga sheekay waxay ku yiraahdeen ma lubthuhu fil ardi dhulka muddo intee leeg buu joogi doonaa dajaal nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam 40 yawman afartan bari markaas nabigu wuxuu sallallahu yawmun ka sana wa yawmun ka shahrin ويوم كالجمعة وسائر الأيام كأيامكم يعني وحوشوغا يا أفرتن كابري مالين سند بيودي قنتا مالين نبيل بيودي قنتا مالين أصبح بيودي قنتا مالمها سو هرينا مالمه نوكلواه مركز وحي رسولك إله يو maalinka sanadka u dhigmay hal salaadi ma nagu filan tahay maalinka sanad u dhigma maalin salaadi bas ma nagu filan tahay markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam la faqduru lahu qadrahu maalin salaadeedii kuma fille qiyaasa oo taqdiir iyo qiyaas ku tukada buu nabiga sallallahu alayhi wasallam sanadka qadara macnaheedu waxa weeye meeshii marka qorax isku fidsan noqoto ama habeen isku fidsan noqoto dadka joogay ku nooli waxay qadarayaan maalintii iyo saacadaheedii sidaasayna shantii salaadood ku tukanayaan xagee bay ka qaadanayaan taqdiirka oo qiyaasta xagee ku saleynayaan culimada in badan waxay leeyihiin waxay ku saleynayaan wadamada qoraxdu u soo baxdo ka ugu dhow ee dariska la ah kaasay uga qiyaas qaadanayaan qoraxdiisa kaasayna ku soconayaan yani markii duurku soo galo salaadaha waqtigoodii taasay ku saleynayaan ku beesgareynayaan sidaasay marka u tukanayaan oo u cibaadaysanayaan kadalika soonkuna sidoo kale way wallahu a'lam waxaan joogaa Nairobi xabsi najaaso ah ayaan galay waxaana ku jiray 6 bari muddadaas ma aanan tukan wax salaad ah qaabkee u soo qallaynayaa xabsi najaaso baan galay magaalada Nairobi waxaana ku jiray 6 bari muddadaasna salaad ma tukan qaabkee baan u soo qallaynayaa ruuxa hadduu xabsi ku jiro oo salaada shuruudeedii uu keeni kari waayo dahaaradii weysadii kulli hadday u suroobi weydo sida uu kari karo u tukanaya wattaqullaha mastata'tum إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم سيدا كران كيسوتو كان كرا يوتو كان ده مريو نجاسهن ماشو كنتو كان نجاس تاعي استيجاء وايو ويساء وايو اسكا غبغبيسان سغو مرضو نجاس تاعي وماشو كنتو كان نجاس تاعي بو صلاه تكنيا maxay salaada sina loogama tago salaada waxa looga tagay kaliya waxa weeye inuu aqligaagu lumo ama aad waalato ama maanka lumiso ama hurdo kaaga tagto ama aad suuxdo maskaxdo lunta mooyee salaad waqtigeeda lagama saari karo allahumma hadii jamc iyo saasoo kale aad ku timaado mooyee marka salaadii waan isaga tagay waan soo qalaynaya wax jira ma salaada waqtigeeda tuko xabsi baan ku jir waan nijaysayna yeelkadaada meesha xaar iyo wax la yeelkadaada ku tuko kaliya waxa la isku khilaafaya ma soo xilin salaada sida loo tukaday mise la soo xilin maayo oo dib miyaa laga tukanayaa mise maya wasaxiix inaan la soo xilinayo laana wax way adoonkani intii karaankiisa uu cibaadaystay inta unbuna ilaahay ku kalifay waxa ka badan ilaahay ma saarin sidaas daraadeed khalad weeye inaad salaada kaga tagto xabsiga dhexdiisa
haddii aad ka tagtayna waxaa laga rabaa salaadihii kugu dhaafay xabsiga dhexdiisa inaad dib u qallayso soo tukato waqtiga ugu dhaqsaha badan iyo sida ugu degdeg badan wallahu a'lam جزاك الله خيرا شيخ سؤاشا أفر كواد شيخ waxaan weydiinayaa haddii aan maro islaanta guriga ka shaqaysa ee gaasha meel ay martay iyada oo caga qoyan ama aan ku istaago oo aan ku tirtirto caga saar ay iiga horeysay weysadayda ka waran maxaa weysadaada iyo kala galay islaan meel ay martood ku istaago islaanta guriga joogtay shaqaalaha ee gaasha marar badan baan ka jawaabnay jirkeedu nijaaso maaha wixii adiga aadan ogeyn oo marka aadan nijaasoodan arkaynin nijaaso maaha sida raajixa ah waana mas'ale ay culimadu ka hadlaan gaalada dharkooda iyo jirkooda iyo asal ahaan iyo weelashooda iyo asal ahaan waa daahir wixii marka aanan nijaaso ku ogeyn nabiguna sallallahu alayhi wasallam saasuu la mucaamaloon jiray weelashooda dhaqankooda ila way la deganaayeen nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas daraadeed asalka wax weeyaan inay daahir yihiin allahumma waxaan ogaano gooni amooye ayadda alla leeyahay tabaaraka wa tacaala innamal mushrikuuna najas qaaladu waa nijaaso fi suurati tawbah sida saxiixa waxa laga wadaa nijaasatul i'tiqaad caqiidadooda nijaasa laakiin lagama wado jirkooda iyo badankooda lagama wado sidaas daraadeed meeshay cagta dhigtay iska daaya weelashay dhaqday ayaad cuntada ku cuntaa oo dharkay dhaqday baad labisan tahay meeshay ku istaagtay haddaan ku istaago weysadu ma iga jabaysaa war maaha weyse iyo arrintaana oo shaqaba iskuma lah su-aashu waxay ahayd oo shakigu imaan karaa haddaan ku istaagay lugtu ma iga nijaasoobaysaa bay ahayd inuu yidhaah laakiin weyse jabin meesha amaba timaadaba almay masaladaasi sidaas weeye waxayna ka mid tahay shareecadeennu meelaha ay dadka xalajka ka saartay yacni shareecadeennu xidhiidhiga iyo yacni waswaaska faraha badan iyo ma qabto baabu nijaasaad iyo dahaaro markay timaado waxaadan hubin waxa ku qaybsanin asalka ashyaadu waa dahaaro dhulku waa daahir aadamuhu waa daahir wax walba waa daahir wixii markaa aadan hogayn oodan hubin wixii aad hubto markaa nijaasa ka muuqato baad nijaasa ula dhaqmaysaa wallahu a'lam sheekha waxaan weydiinayaa suufiyo waa mushrikiin baa tiraahdeen waana muslimiin seebay isku qabanayaan mushrikiin iyo muslimiin ciddii sidaa tiri inaad weydiisaa fiican annaga ma aha suufiya waa mushrikiin oo sidaa u itlaaqan maanan dhihin marar badan dadku wuxuu isagu fahmay iyo siduu wax u fahmay buu adiga dusha kaa saari cidda leeyahay waa gaal waa cid qur'aanka iyo sunnadu ay sheegeen waxa uu ku dhacay inay gaalnimo tahay ama suufiya ha ama qeyrkii ha aha ciddii ku dhacay wax qur'aanku sheegay inay gaalnimo tahay lagalana baqi maayo lagalana xishoon maayo in la yidhaahdo waxaad ku dhacday waa gaalnimo laana qur'aanka iyo sunnadii baa tiri ama in la itlaaqo la yidhaahdo koox hebel waa wada gaalo warkaasi war saxsan ma aha suufinimadu qaar bidcay gaadhsiisan tahay aan gaalnimo ahayn qaarna shirkiyaad baa yay ku jiraan oo shirkiyaad bay gelayaan marka in la camimo la yidhaahdo suufiya oo dhan waa gaal warkaasi war saxsan maaha war cilmiyeysanna maaha taasiil cilmiya maaha laakiin taasi ma diidaysa ciddii lagu arko inuu gaalnimo ku dhacay ama shirki galay in la yidhaahdo shirki baad ku dhacday masaladaasi masalo waay masalada labaad cinda ahlusunna waljamaaca waxaa la kala qaadaa ruuxa dembiga ku dhacay shirkiga ku dhacay kufriga ku dhacay bidcada ku dhacay fisqiga ku dhacay shayga uu ku dhacay xukunkiisa iyo isaga lafahaantiisa in la xukumaayo marar badan waa la kala qaadaa oo shayga uu ku dhacay in daliil loo helo ayaa ku filan in la yidhaahdo shayga xukunkiisu waa saas waa kufri waa shirki waxaad samaysay waa gaalnimo waa shirki intaasaa ku filan
أما إساق لفهانتي سإن لك عليه وحيوب أنت في رلبات بيوبها أنت روح بالشرك كل عي أما كفر كل عي waxa uu sameeyay waxa leena waa kufri waa gaalnimo waa shirki laana aayadana sheegtay xadiidkana sheegay ama isaga la fahantiisa gaal baa tahay iyo xukunkii gaalada inaan siino dhiigiisa la baneeyo xukun gaalada iyo murtadiinta inuu qaato waxay u baahan tahay isaga shakhsiyadiisa markaa in la fiiriyo maxaa uu geeyay hadalkan maxaa uu geeyay ficilkan waxa uu geeyay ma jahri baa uu geeyay cudur daar ma leeyahay ma carada ka tanbadatay ma faraxa ka tanbatay موانعدي إن لا حكمه قال لي ما الله صاروا ديدي سماشة ما كبحضي روح والبقوري سين لو ميزامه وباهي دات كدات با انت قال لي ما كل عذر دار يلاني انتو الشرك روح وكل بعذر دار يلاني لا جالسيني وانا مسألة علماء يدهدان ليس كل من وقع في الشرك يكون مشركا وليس كل من وقع في الكفر يكون كافرا وليس كل من وقع في البدعة يكون مبتدعا وليس كل من وقع في الفسق يكون فاسقا ومسألة هذا مسألة وحل هذا الأسماء والأحكام بلو يقانا وحين هوستكتا وحل هذا باب كل هذا باب الوعيد بهوستكتا شرع هذا مسألة ذا سمرك مسألة نوعها سواي روح مركا أن كلا جرنين وصيدا مسألة ذا أنو كلا جرنين هدين لي هذا روحي إلهي إذا أنا هاي بريا وقال أصلاً أنت سوحو كفهم يا ضدك إلا وذا جالس لأن أقونت هذه فرح بالناي تفاصيل مسألة إلا كلا قاضي مكرني أدلة ذا سيادو فهمتان صف ضد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحول عن ضي إدي خمرة عبته كخمرة عباء كحبسينية كسمينية كوكالمينية طبعاً بنبي ولا عن ذي خمرة خمردي وسيدا أول لعنضي دتك عبينا أول لعنضي أيا نبي قال الله كأنين عبسن مركز الله كرباشي هذا نمر لواد بالك يعني سوى عبسن ولا كرباشي هذا نمر صدحات بالك يعني ولا كرباشي نين صحابة كم يدل لعنضي لعنضي كوكو عضي بدنا أنت اللي كينه مركز النبي يقول هاللعنضي كذابوا هاي إلى رسولك سجعلي وفي رصدا نبي خمردي دتك عبي يقول عن ضيب ونين عبي هذا النبي يقول حكم كي العناد إن شخصيا لصار ودي حاكى للدول مركب وحاكى للدول إنه كل عي شيء العناد اللي شيء يسقوا يكلدويه يسقوا حلقيا با إنه دنبيغا غلي لكن وحيابا ديدي حكمك ان لا سارو اني كسغيهن اما موانع اما شروطي با جيرين اما موانع با جيرتا مساله وحوي اهل السنه والجماعه اكتودا عنكا كتبتونا اي كتقريريين sidaas daraadeed mas'aladani waxay u baahan tahay dadka aan aad u garanaynin oo sida caamada iyo dadka la midka ah inay masaa'ishan marka laga hadlayo ka gaabsadaan wallahu a'lam sheekh xaaskayga anoo u baahan haday isku kaydiido ayadoo ku cududaaranaysa dhawaan baan dhalay diintu maxay ka qabtaa midda kale gabadhu marka ay dhasho ma laazim baa in la sugo 40 bari xagga haweentu haday umusho muddada ay sugayso oo salaadana ayna tukan kareynin ninkeedana aynan is arki kareynin muddada ugu yar waqti ma laha waa inuu dhiigu ka go'an baa muhiim hadduu 10 bari kaga go'o waa inay qabaysato tukato ninkeedana way is arki karaan دي مركا عافيمات كده سامحي مركا مدة أغير حد ملها ديو كجو أبا ويقبيسن وظاهر مركز أما هوين إذا ننكذو هدو كذا البضاء حقي سريرته ينو لك كل ما إن يدي دوا قلت النبي نوح صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته هدو ننكو حاسكي سأغير دقوشة فأبت أيدي دو فبات غضبانا اسقوا عريسنا واغو وبريو هبينكي بريو النبي صلى الله عليه وسلم عنتها الملائكة حتى تصبح ملائكة لعنة ديس إلى واغو وبريو رواية كلوحي أهيت إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها ميتك كورتشرة أيا أعروني والله تبارك وتعالى مركا
وحقوقda ونين كليهاي حق جوجشة هوينيدو مركا يضو كاري كرتا إني وديدو وحاران لعنة بانك الله لكن وإني عافي مدهان أودي كرتواه هذين أودي كرينين وينان مركاسي عافي مدهان حميلي كرين مركان نينكو إنو تحكي لي ويا قبل الظروف تير نينكا قبل أنتي ومش كبحيس السوق لأنا وحنريه لها أذر جورسو متكلا جورسو أيضا وحنريه لها يعني لقول له قويني نينكا نسكدا متكلا وكاغا مارتي وكاغا مشغوله ها جورسو أسأنا وأني رجع نودو كبضتي متكلا هقدره وقبل أنت أمولت هاي أنت كبوك سونيسي أنت أولاد إسكر عيان مداك لها كم مقنعه حارب أو كجرت ما جعل عليكم في الدين من حرج دين الحرير ما بهب والله أعلم sheekh hadduu nin dhinto isaga oo islaantiisa qaba oo kadib nin kale uu guursado aakhiro keebay raacaysaa ma kii hore mise kii dambe masaladaasi dhowr goorna waa ka soo jawaabnay aahaartu waxay tilmaamaysaa haweenayda adduunka ninkii ugu dambeeyey ayay aakhiro xaas u noqonaysaa dabaraani baa soo saaray fi lawsat min xadiidi عمرو ميمون إنه هو الملينيا بس ميمون مهران بوها معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيوح صوت دوني أم الدرداء أبو الدرداء مركو كرد أنت صحابي جليل كها أيوح حاسكيسي أم الدرداء أيوح صوت دوني معاوية مركو صوت دوني بيدي مركو وحيكون اللي يسيوتري ninkaygii Abu Darda ayaan maqlay tiri isagoo la rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haweenaydu hadii laga dhinto oo ninkeeda gadaashii guursato nin kale kolba ninka ugu dambeeyay aakhira nin u noqonaysaa aniguna Abu Darda nin aan ku doorsanayo ma jira tiri Muawiya raallahu waxa xoojinaya laba athar oo kala mid walba dacfi ku jiro atharka koobaad waa Xudayfa ayaa wuxuu leeyahay Xudayfa al-Yamaan xaaskiisii baa wuxuu ku yiri haddaad rabto inaad aakhira aad noqoto xaas gadaashay ha guursanin haddaan ka dhinto gadaashay dhinta ma guursanin haddaad rabto inaad xaas noqoto aakhiro maxaa yeelay haweenaydu kolba ninka u dambeeyay aakhira xaas u noqon doontaa wuxuu ku daray saas daraadeed baa nabigeena sallallahu alayhi wasallam xaasaskiisii la diiday gadaashii in la guursado maxaa yeelay waa xaasaskiisii jannada in looga dambeeyaa la diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam marka asar kale ibn Sakir soo saaray baa jira isagana aadaarta marka la isu geeyo masalada jawaabteedu waxa weeye haweenaydu haday rag badan soo marto kolba ninka u dambeeya ayay aakhiro haday jannada galaan ay xaas u noqon doontaa wallahu a'lam sheekh shaambo caanka ah dalalka Yurub iyo Mareykan oon laga helin Afrika magaceeda haddaan koobiyeeyo oo China ka soo sameeyo kadibna aan iibiyo xaraamba arrintaas xaraan waaye ma banaana laana magacyada kambaniyasha in inta la xado la isticmaalo alaab lagu soo samaysto suuqa la geysto waa xaraan maxaa yeelay magaca kambaniga iyo calaamadiisa tijaariga ah waa manfaco shaxali baan idin sheegay manfacadu inay xoolo tahay magacan in la dhiso oo magac yeesho oo badeecadiisa lagu aqoonsado tayo lagu aqoonsado oo caalamka la barto juhdi badan baa galay kharash baa galay waqti dheer baa laga shaqeynayay hanti baa gashay magacu marka waa hanti maadaama uu hanti yahay adoon lagu idmin inaad isticmaasho waa dhac waana khiyaano waa boob sidaas daraadeed baa waxay ka mid tahay xuquuqda la xifdiyay bay ka mid tahay xarabaan idin sheegay waxyaalaha bini aadamku ibtikaaro ama meehe uu hal abuuro waxyaaluhu abuuro xuquuq waaye xuquuq marka sida xoolaha kala loo ilaaliyaa waa hanti sida aan lacagtaadii gurigaaga iyo xoolahaaga loo qaadan karin baa magaca adiga aad abuurtay iyo macnaha aad samaysay ee adeega bixinaya ama qiimaha leh ayaan loo isticmaali kareynin
marka ma bannaana waa khiyaano waana dhac ama waa sariqiyo tuugnimo haddaad hoos ka isticmaalayso ood qarsanayso arrinkaasi marka waa arrin khalada soomaaliduna way ku badan tahay kambaniyada caanka ah inta magacyadooda la qaato in alaab lagu soo samaysto kadibna alaabteedahay sidaa lagu suuq geeyo mar labaadna waxaa la khiyaamayaa dadka wax laga gadayo oo kambaniga magaciisa iyo calaamadiisa waxaa lagu yaqaanaa tayo mucayana lagu yaqaanaa alaabtan aad soo samaysana tayadii ma laha sidaas daraaddeed dadkana waad khiyaamaysaa kambaniga magaciisiina waad xadaysaa waad dhacaysaa xaaraan waaye wixii kuu soo gala sidaana waa xaaraan wallahu aclam sheekh cagaha ayaa i xanuuna marka aan sacyiga safo iyo marwo marayo marka iskaalshooyin ma xihan karaa asal ahaan marka ruuxu uu xajka ama cumrada aado waxyaalaha aan loo ogolayn waxaa ka mida kabaha wixii aanqowga daboolaya wixii aanqowga ka hooseeya dhib ma laha haddii uu ruuxu ama dawaafkii ama sacyigii samayn kari waayo markaasi waxaa loo ogolaanayaa inuu xidho ama socks ama khuf ama kabo laakiin markaa wuxuu ka goynayaa aanqowga wixii ka hooseeya nebigu sal lla alay slam xadiiska saxiixaynka ku yimid ruuxii kaba waaye wuxuu nebigu ha xidho khufka ha xidho waliyaqtachu maa asfala min alkacbayn aanqowga wixii ka hooseeyana ha ka gooya buu rasuulku sal lla alay wasalam sidaa markaa ha ku xidho hadduu kaba waayo hadday marka duruuftu qabato oo uusan dawaafi karin ama sacyin karaynin khuf la'aan ama sogs la'aan yacni aanqowga wixii ka hooseeya yacni ha ka jaro sidaan ha ku dawaafo waxaa kaloo u furan kaba furan inuu ku dawaafaa u furan kabahan dacaska ama kabahan furan ee aan aanqowga gaadhaynin wuu ku socon karaa waa lagu dawaafi karaa waana lagu sacyin karaa xataa ruuxu isaga oo aanba daruura u geynin ama baahi u geynin yacni laazim maaha inaad yacni muxuu ahay aad kacbada iyo sacyiga iyo inaad kabaha bixisa laazim maaha kabahu hadday yihiin kaba markaa aan aanqowga ka hoosey waa la xidhan karaa waa lagu dawaafi karaa waana lagu sacyin karaa wax dhiba ma laha wallahu aclam waxaan hayaa lacag sadaqa ah oo la ii dhiibay waana u baahnahay ma isticmaali karaa si aan hadhow iskaga bixiyo maya ammaanada lama isticmaali karo ilaa biidni saaxibiha ammaanada hadday cid gooniya leedahay ciddii iska lahayd oon kuu idmin ma isticmaali kartid hadday ammaano caam a tahay oo hanti caam ah hanti masjid hanti waqafa hanti agoon hanti dowladeed hadday hanti caana tahayna ma isticmaali kartid waa in sidii lagugu dhiibta aad u hayso haddaad isticmaalto waa khalad waa khiyaano maxaa yeelay waan sii isticmaalayaa hadhowna waa gudayaa faa'iidada ka soo baxaysa ayaa yeelan baa imaanaysa ilaan faa'iidadu waxay ku soo baxday dadaalaad bixisay iyo xoolahan labadaasoo isu tegay baa faa'iidada keentay see loo qaybsanayaa way imaanaya waana masale ishkaalkeeda leh waxaa kaloo imaanaysa xoolahani waxaa dhici karaysa adiga waan ku yara shaqaysanoo faa'iidaan ka soo saaranoo lafahan celinaya raasamaalkiiba inuu gubto soo suurtagal maaha waxaad ku gudana aad weydo soomaali badan waxa badda geliya waxaas waa waxa beerta geliya soomaalida waxaas waa xooluu hayaa xoolihii marka wuxuu leeyahay waxoogaa ka yara faa'iidayso wax yar ka hel kadibna celi kadibna way la dhici yaa jug way la gelaysa marka ammaanaadka in la isticmaalo ma bannaana ilaa in ciddii lahayd aad kuu idinta mooyaane wallahu aclam sheekh guri ayaan deganahay dadkii guriga lahaa waxay dhaheen kirada online ku soo bixiya bil walbana waxaa la socota lacag $10 ah oo ay dhaheen waa transaction fee meeshaas ribo miyaa soo gelaysa wax ribaa kuma jirto keliya una dad raalli isaga tihiin kirada soo dir ama meeshaa ku shub wixii qarashee ku baxayeen in aad adigu bixiso raalli haddaad isaga tihiin dhibaato ma leh ribana ma gasho haddaad dood ka qabto lacagta aad ku dirayso ama aad ku gelinayso meeshii lagu yidhina
وين أدمرك كدو توتي راهدو دي كيراد هذا أمان كجويني يعني أنا ولا عجوني بحين ماي لكن الربا ما سوقش ماشاس والله أعلم. شيخ وحن وذا بابور تواوين صلاة هوان إسراعية ظهر يا عصر مغرب يا عشاء ما يبان عنتها. ما دام أتسافر تهاي أنت أتسافر تهاي أردن صلاة هوا جمعين كرتها وأنا قابين كرتها لأن علده هو سفرك عمري هذا سفر تهاي أما نقولش هذا هو السفر وبدين أنت أتسافر كتهاي أردن رخصة واتهاي ستا صلاة اللي سجين واتسجين محوها هاي واتقابين كولا قابيو صون كوات سكافوري دبات كقلين وحيكون حرام تهاي إن هذا مسافر تهاي سفر كاغو إنه دورادو وحبك بدري ميس ديارات ودا تراجس كاد ودا بسس كا ودمدو كلا جوشات ودا تريمات ودا نولش هذا صاو بدن أنت سحطه سفر تهاي وردن قابي صلاة هنا الجمعي الرصد الشريعة واضح هيستان والله أعلم. شيخ قف جوجا قربها وأنا نسقبين جور عن حقيقة هين مسامين كرنا سيو إي وضو هديد دلال لجن نقدنا كورهن أرنتاس. شريعة جور عن حقيقة هين ما تقانو جور بين بينه وعن حقيقة هين شريعة الإسلام ما تقانو وحي يسوون جور هين إن جور لو إكيسينا شريعة وحي أتقانا تشيس شريعة لو تشيسي ولا تتخذوا آيات الله هزوا إلهي آيات كيسة تشيس هكذا جنا بين هي خيانة هي لقدبنا شريعة مؤقلة أما قال خيان أما مسلم خيان والله أعلم. شيخ أنيقا أوير أيانين آدي إيقاوين لا إيقو داري ننكي سعودي عربية أيو إلى الدقي كدي بوحو إيقو فري هالدا الغد وحونا إيقو يروحاس فرين معهن فريتانكا وحو أباهيه مغراتي إيا مقع إن لا شيغو وحبا دادها وشيغين إسكا آموس أنيقونا وان إسكا آموسي فريتانا مفهم سنين سيدي أيان أودا جوغني صدح عرهور مركان أدالي أيو هدانا إيقو فري هالدا الغو ويكدب ويسوع الشدي هدانا لبدا القادود بو إيقو فري marka la isku daro dalqadahaasi waa 4 sanad baa ka soo wareegtay hadana wuxuu ku doodayaa gabadhan 2 mar oo mid tahay hal dalqo midna tahay 2 dalqo ayaan furay hal dalqo ayaan ii haray wuxuuna inkiray dalqadii u horeysay culuma loo tagay waana la isku celiyay kadib waxaan u dhalay 2 cunug markaan weynaaday oo aan culumo arintii weydiiyay waxaa la ii sheegay ninkaas waxaad kula joogtid waa xaraam ninkii waxaan ku iri ima qabtid asna wuxuu leeyahay waan ku qabaa aniguna nin kale ayaan guursaday sheekha waxaan weydiinayaa ilmihii dhashay nikaaxii soo laabashada ahaa 4 dalqadood kadib xukunkoodu muxuu yahay ninka aan guursaday ee dambe ma ku saxanahay mise waan ku khaldana mushkilo way Soomaalidu markay wax walaaqaan waxuu bedii khariba bidoor ila xalis waraal raba markay wax ugu cusub yihiin wuxuu markaas shariicada la raadsado laakiin marka inta tilaabo ka gudubto tu kale ka gudubto wixii isqulqula markaas wadaadada hal xaliyo way dhib badanta almuhim hadii uu ninku uu gabadha furo furiinkii iyadu ay hubto asaguna uu inkiro oo isqabsadaan gabadha waxay ku doodaysaa ninkan 3 goor buu furay 2 wuu qirsan yahay midna wuu inkirsan yahay aniguna waan hubaa 3daba kadib sidaa markay dhacdo maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay ninka hadalkiisa la qabanayaa laakiin waa la dhaarinayaa القول قوله مع يمينه فمثلا خلاف بدن كجيرو لكن سيداس الى حق بدن ان ليراهدو دارو inaad gabadhan dalqadan la isku haysto inaadan ku furin baa la dhaarinaya hadduu dhaarto xarigi waa jira dhaarta uu dhaartay kadib hadda iyadu hubto haddana 3 dalqood inay dhaceen way isu diidi
waxaa la xukumayaa in xadhiggii jiro laakiin haddana waxaan la jiiri karin hubaasha ay hubto inay 3 dalqood dhaceen lama muquunin karo ayadii marka waxaa la leeyahay isu dhiibin gogol la seexanin kana carar diid baa la leeyahay haddaad madax furasho samayn karto ka madax furo haddaad maxkamad iyo fasaq aadi karto fasaq aad laakiin xariggii daahiran waxaa la xukumayaa maadaama uu dhaartay hadalkiisii baa la qabanayaa xariggii inuu jiro masaladaasi waa sidaa waa ama waxa lagu muransan yahay dalqadii oo dhamaaday ha noqdo ama midda hore noqoto midda labaad ha noqoto يعني وحويان حديث النبي قال مرينا صلى الله عليه وسلم ورسولك يري البينة على المدعي روح وحشي كان يا وينو حدين كانوا كبرنا وحالي مرخاتية كان هذه مرخاتية كان توركوا عادي مركوا ويفرنتها هذه مرخاتية أي ويدو الشجع مركوا حالي هي واليمين على من أنكر ولا دارنا مرك الله داريو أدو دارتو واسيدا شيكنا لكن أيضا مركاسي ما دام أي هبطو يسديدي طيب سلادة مركز سيدا على مريم سؤاشن هذا قبل ويديس مركان كوسون نقولنا نينكي مركز هبطو سدح القضاء أيضا سدح الله رمزنا ده يعني سدح القضاء كذا ما ده نسوون إنكرسيه أيا محوها هاي لوع عليه مركز لوع عليه ماشى الماء كذا شيء علمي بويدينيسه هذا مرضاً بي سجتك تيو ورداً بي هشيو ويسجتك تيو هذا نين بي قبتان نين كادم بنا حركيسي مصحبة مسوا خلط مده هرو عرورته إن شاء الله عرورته دي ماله أما نكاحه صح سنادو أما يوصن صح سناني عرورته عرور شرعية لأن مرر بنصوت المعني عرورته إنه الشرع النقدان ولقبت بهذه إنه قرع النقضه waxaa ku filan kaliya labada ruux ee isu galmoonayo inuu ninku xaaska haweenayda ugu galmoonayo inay xaaskiisii tahay niyada uu kula kulmayo haday tahay inay u banaanto xaas u tahay intaas ku filan ilmuhu inay niman sharciye noqdaan fi nafsi alwaqti haqiiqatu al-amri ama hakadu wanaata ama huwa faqsanaat laakiin haduuba xalaalnimo ugu tagayo gadaal baa ka soo baxdaba inayna sax ahayn ilmuhu marka waa sharci ilmuhu marka abood baa lagu abtirinaya wax ka daran bay fuqahadu yay abtirka ilmaha ku sugaano waaniga idin sheegay dhowr gooro islaam aan xarigba uusan u hayninba laakiin xaaskiisii uu moodo u galmooday kadibna uur qaaday ya xarigba uma hayaba laakiin islaantiisii buu ku qalday kadibna uu iska barakeeyay هور بيقاد المها سبناك الله توري ما يوحل ليه ننكر سحاسكي سموسا موذي إنها المها أنت أبترها اللغوسية وأبوه باللغو أبترنا يا علم شرعي مركز شرعات وحي آدو قد داشا المها إن أبتر الآن للدين أنت وحلوه لكرو الله رادنا حتى هذه الله للصبب ضعيفة وتبردرا والله سقيا تاوى عرور تحق وضوء وحصوها لي ninkan hadda ay la joogto xariga ay kula joogto masaxsay mise waa khaldan ninkan hadda ay la joogto xarig uma hayo waa inay ka tagto maxay yeelay kii hore oo aan laga sal gaarin oo aan meel la saarin bay nin kale iska guursatay waa iyada say la ahayd yay ku go'aan qaadatay saxna ma ahayn haddii ninkii la yidhi hore hadalkiisa hal la qabto hana la dhaariyo lama marin haddii la yidhi hadduu dhaarto oo warkiisa la qabto ayadoo yeena isu ogolaanayno hadiidana macnaheedu ma ha iska tagto inay iska guursatee waxa la rabay ama inay madax furasho samayso tiqadaal dambe iska furto ama waxa la rabay inay maxkamad sharciye tagto marka maxkamadu fasaq samayso oo ay kala furto markii xarigii hore meel la saaro kadib ay marka kadib nin kala guursan kartay laakiin xarigii hore la laada oo iyaduna si u haysato ninkiina si u haysto lagu muransan yahay nin kale say ku guursan kartaa waa guurka dambe marka waa khalad waa inay ka noqoto ka cidda tirsato ninka kalena furitaanba uma baahnaba ninkan dambe furitaan uma baahna laana khalad buu ku soo galay xarigiisu xarig jira ma marka kadib ninkii hore waa inay ama ay madax furasho ka samayso
ama waa inay maxkamad sharciya tagto maxaakiimta tagto oo maxkamaduhu markaa go'aan ka gaadhaan oo fasaqaan markaa kadib ay nin kale guursan kartaa wallahu aclam جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك إلهي سبحانه وتعالى شيخها بركيو إلهي عافماتك يا علمك يا عرورته وهو بركيو أننا إلهي سبحانه وتعالى هنوى أنفعه هل كاسين كتوشنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته